والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan halkan aan soo istaagnay in aan ummadda Soomaaliyeed la wadaagno magacaabista mudan Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ah inuu xiriiriyo howlgalka ama arrimaha humanitarianka kaalmada caalamiga ah kaalmada Soomaalida iyo dadka ayna duruufaha ku sugan oo dhibaataysan ka warqabkooda sida xaaladdu ay tahay mar walba la socodkeeda iyo abaartu haddii ay dhamaato xataa ilaahay idinkiis waa dhammaanaysaa kasii kadib dadkii dhibaatada ay ku dhacday xoolo beelay ee dhibaatada ay gaartay sidii looga sii warqabi lahaa oo dadkaas noloshooda mustaqbalka fog loo waxay lahay in barnaamij cad iyo wada cad oo mustaqbalkana lagu waxeeyo karo shaqada waa shaqo oo tabarucaad ah oo nafti huranimo ah oo mudanaha oo noogu tabarucay ummadda Soomaaliyeed annaguna aan la garanay waanu naga aqbalay asaan sheegi doon haddii alla yiraa waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed dawladdu in ay mar walba ay ku taagan tahay qadarinta tixgelinta duruufaha dadkeena ay ku sugan yihiin si kasta aan u tabar yaraano laakiin waa inaan ka warqabnaa in awood kasta oo dawladdaanina ay leedahay muwaadinka Soomaaliyeed meel kasta oo joogo duruufihiisa gaarka iyo baahidiisa gaarka in la og yahay haddii xataa wax weyn aan la qabanin xataa in la og yahay laakiin ogaal la'aan aanu qofna ku dayacmin xaaladii aanay faraha ka bax aanay ku noqonin waaye muhiimadda ugu weyn ilaahay idinkiis waxaan dadka Soomaaliyeed u sheegno dawladdu waxay u taagan tahay muwaadinka Soomaaliyeed duruufihiisa iyo danihiisa inay ka jawaabto intii abaarta nooga dhimatay Allah u naxariisto inta kale oo dhibaataysan ilaahay ha naga wada qaado dalkoo dhan iyo gobolka Geeska Afrika oo dhan ay ka jirtaa abaartu waxaan rajaynaynaa roobabkii da'ay meelihii ay ka da'een kuwa waxtar in ilaahay ka dhigo kuwa kalena ilaahay inoo keeno dawladduna wax kasto ay suubi karto iyo dadaal kasta ay sameyn karto kama gaabin doonto dadkaasna duruufaha hadda ay ku jiraan in laga jawaabo mustaqbalkana in loo sii meel daya haddii alla yiraa arrintaas ayay ahayd muhiimadda ugu weyn aad iyo aad u mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillahi rahmaani rahiim mudan madaxweyne aad iyo aad u mahadsan tahay mas'uuliyaddan aad isaartay waxay tusaysaa mudnaanta aad siinayso ka jawaabidda gurmadka abaaraha dadkeena tabaaleysa runtii sanadkii dheeraa ee doorashada lagu jiray wuxuu aad nooga mashquuliyey duruufaha dadkeena abaartu ay ku dhufatay malaayiinta gaaraya ka barakacay guryahooda qaarkood ay hadda qarka u saaran yihiin inay macluul ay isku bedesho abaarta adduunka ka jawaabistiisii arrintaas oo aad u yar maadaama dawladdii ay xilli kala guura ku jirtay haddana xilli kala guura ay ku jirto inaad mudnaanta siisay arrintaas runtii waxay tusaysaa dareenka aad u muujinayso ummadda Soomaaliyeed ee waxqabadka ah annagana aan mas'uuliyaddaas aan saartay inaan ugu shaqeyno ummadda Soomaaliyeed si oo niyad ah oo aan adduunka baaqiisa aan u jeedino oo dadka Soomaaliyeed iyo gudaha iyo dibadda isku xirkaas mas'uuliyaddaas aan saartay runtii waa kaaga mahadcelinayaa hawshaasna waan aqbal haddii Ilaahay yiraahdo waana u gunta doonaa in aan dadka Soomaaliyeed aan wax allaali wixii aan gaarsiin karno intaysan isku bedelin macluul abaartu aan ka hortagno dawladdana waxaan ka rajaynaynaa inaan garab buuxa aan ka helno hay'adaha kala duwan adduunkana aan ka helno mar kale oo ku mahadcelinayaa kalsoonidaas ayada ah oo dadka Soomaaliyeed ugu shaqeeyo aadna siisay aad iyo aad u mahadsantahay.